hayno laga horeysiiyey nimankii gudoomiyaasha ka ahaa ururada siyaasadda oo dabcan cabqariyiin oo codkar ah oo kaabeyn ku jira oo maaragtay dee habab kale dowlad dhigaya taasi waxaa soo gelinaysaa in codka iyo duurku bato oo aan la dhegaysan waxaan codsanayaa in la isdhegaysto waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaana ay xildhibaan ka soo jeeda gobolka Sanaag laga soo doortay xildhibaan cod ka helay degmada Tangarada way farxad maanta inaan ka soo qayb galo daafurka jaamacadda Garadag aad iyo aad baan ugu faraxsanahay boqol jeer baan faraxsanahay mar waxaan faraxsanahay waxaan ay bahda jaamacadaha waxaan ahaa macallin jaamacadeed waxaan aasaasnay jaamacadda Sanaag waxaan macalinka jaamacadda Hargeysa New Generation Armas iyo jaamacadaha Hargeysa ilaa civil service institute sida awgeed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in gobolkayga laga daafuro jaamacad guddoomiyihii jaamacadda halka ka hadlay runtii waxaan ka warwarayay in kasoo qaybgalayaasha faraha badan ee maanta jooga runtii aan wax warwara kama qabin in sida looga soo qayb galo sababtoo ah degmadatan waa degmo taariikhi ah waa degmo qaali ah waa degmo soo saartay go'aamo lagu doortay madaxweyneyaal sida awgeed rag badan oo damaclaa jiray rag badan oo isbaacsanayay iyo dad badan oo ordayay oo rajo ka qabay halka kan goorteeda taaganahay mustaqbalka in laga dhiso baa markaa jira warwar kama qabin in jaamacaddan aad loo saacano runtii kasoo qaybgalkeeda ugu dambayn hadal badan waxaa ma tarayo gobolka Sanaag waxa ka qalin jabiya secondary schoolska sanad kasta celcelis arday oo ah 2,000 arday 2,000 arday way ka baxaan gobolka waxayna qabtaan gobolada kale 2,000 arday 90% way darab garoobeen nolosha way ka dhacaan waxbarashada way ka dhacaan sababtu maxay tahay sababtu waxa weeye waxay tagaan gobollo kale oo aan dad u joogin transportation ka qura ayaa ilaa $50 markay Hargeysa oo kale joogaan markaad ka tagto culayska xaafadaha ay saaran yihiin 2,000 iyo sanadda markay 2015 waxaan sameeyay daraasadaas waxay daahfuraysay ardayda iyo qaabka u darba oo garoobaan ardayda badalkooda dadka sponsor gareynaya oo soo diraya dibadaha jooga baa ama dhimasho ku timaada ama duruufo shaqaale la'aan ku timaada dabadeedna waxa dhacday in qofkii oo jooga Hargeysa ay jaamacadda ku kala goodo sanadka labaad ama koowaad soo maraya ama saddexaad wax aad iyo tiraad iyo tabkasan ka yar baa soo graduate gareeya jaamacadda tan waxaynu kaga raysanaynaa fursadda darab awka ama ardayda qalin jabinta ka dhacaysa baynu kaga raysanaynaa sanadka way kordheen ardaydu sida ka muuqata buugga statistical report-ka wasaaradda waxbarashada soo saarto sanadkii celcelisaan 2,500 ardayda kor u kaceen ardayda faraha badan baxaysa kun qof kun arday quri hadday halkan galaan jaamacaddan way isbixinaysaa sida awgeed waxaan ugu baaqayaa cod dheer waxaan ugu baaqayaa reer Sanaag iyo reer Sool reer Togdheer inay jaamacaddan soo galaan isqoraan kadibna ay jaamacadda ka faa'iideystaan cod dheer baan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ugu baaqayaa maadaama jaamacaddan tahay jaamacad inoo aasasay jaamacaddan waxaan ku soo kordhinayaa in la hirgeliyo qaybta la yiraahdo R&D research and development waa daraasaadka iyo cilmi baarista halkan waa laga soo jeediyay dhowr jeer waxdaas waa wax muhiim ah oo gobolkan u muhiim ah ugu dambayn qodob ka adan ka baxo waxbarashada halkan waxaan la qaba mas'uuliyadda halkan ka hadashay in dalka kan ay dadku ku faa'iidayaan nabadda matala haddaan afka ka dhowrin qabiilkan inuu ka soo jeedo qabiil ballaaran maadaama uu yahay intaanu nabadda ku faa'iidno colaaddu kuma faa'iidno nabadda intaanu ku faa'iidnay matala tusaale cad waxaa kuugu ah iyadoona dariiq nabadeed la maray waxaanu la soo baxnay 26 xildhibaan waa alxamdulillah colaad kulama soo bixi karno nabadda waxaan kaga shaqaysanaa gobollada dalka oo dhan annagoo bulshada Soomaaliland iyo waddan dhex ku dhex jirna raalli kama nihin in dadka nala ka dhex saaro waayo dadkan waa walaalahayo waa dadkayagii mar rabno inaanu hormuud u noqonno daadi dhiig islaam caalamka dambiga ugu xun ka dhaca waxa weeye safku dimaa dhiig daataa ugu xun qofka bilaabaa ugu dambi badan
قف كديك تاتم ضد الإسلام كأو بلاغي أي وجود دبحون كافو حنا مسوين دبلي هاي طبعا واحد شنا خلاف شرعي خلاف الشرعي يحليه أنا قاحلنا قولها وكيلنا ولا قم يرايستا وإحنا نقوم يرايستا سوق أيو برورة الطبقة إياه كان سيحون وإحنا مش شيء ولا نيجيبيهم طبعا وحيد تبين قولها وكيلنا لو يموايو الشرعي قال لا يسكوها يستلقون مرميو قولها وسوق يموايو وحلقوا المرسية أقلمية قولها هي المميي حسبية المعارض ويجا أقلمية قولها المميي قوام السياسات أو القارتين أوجد بقول لهم هي أقلمية قولها وكيلنا ما دام قولها وكيلنا أقلمية السبريرة أو عدان أقول لهم هي حسبية المعارض ولي بقاران حسب قانون هتصب حي حسب وطني قوام السياسات وقارتين أنا أقول له أقلمية قولها أنا أقول شرعي كستوري ما أنت أقلبت كل سنة إنه تتكلموا هربود نقطة طبعا كستيدي يقول ضفرين الهربود نقطة بالشدة دقالي عن كهذا هذا اللي لا كرسي قال ينبغى ولا كرسي قاعد اللعيب إنه هرجوته ما تشوفه وإنه قاري كرنا وحلوه هي السياسة والفن أو قروح بدن والشعب السبال للقوة قنعيون وقدام بين أنا وحنا يحلبان قبل السنة لقى صوت دورته dadka waxa jira fahan darrada haysata xilbaanada marka la soo doorto waxaan soo rogayaa xilbaan qaran waxa la igu dhaarinayaa kitaabka islaamka kitaabka jaamaca saddex walaayaa la marinaya waxa la igu dhaarinaya waxa kugu wallaahiya kugu billaahiya kugu tallaahiya inaad danta qaranka dalka u shaqayso marka anigu go'aan qaato golaha wakiilada go'aan ku qaato go'aankayga waxa tixraacaya dhaarta kitaabka iyo mas'uuliyadda ay saaran dushayda saaran sida awgeed aqoonyahan dalku ma aha inuu ku qorabaraha bulshada iyo meelaha malayacniga erayo aan mudnayn anigu waxaan ahay mudane matalaya shacbiga matalaya gaar ahaan shacbiga soo doortay matalaya su-aashu waxay tahay shacbiga soo doortay maxaan u qabtay shacbiga soo doortay wax fara badan baan u qabtay waxa ugu dhow waxaan u qabtay wasiirka ay hor fadhiyo cali xasan maxamed cali baraxaan baan u tegey waxaan ku yidhi gobolka sanaag biyo la-aan baa ka jirta صدح عيال بيون وياسح هي لحد بلاد قدومهم عيال حيس يا عيال ميت يا عيال ماشي ومهرات كبضنين قبلك ديقانا ذا لا يقصوا دورتي وحن حسوستا بالي كالبينا بالي وحي لنقولي تدفع ضيح كلوري هرات دوري مريا لما تبوا يوضا بياه بانو دراي لما تكبوا يوضا بياه ويقف لاوائي انت مال فرستبان وضع حق عند صاري وحن ليا بعرف سوى وقتاي كدب أرنتا يلا مركان صوبحي وحي العليس آجال يقوي وحن تجي وزير كاسر وزارة السفرية وحن شيء حالة الدجاج كتير طبعا ويلا تيلا يا مركي وأنا كل هالسيء هاي وأنا اللي يعلم فيك بيوتي إني كنت تقول نوامي كعب الدورة بإذن الله الكريم ويا إلهي ما بيها تبقى دقسية علاش بيها لغا صباحيا انا وحوي بيلها دي لغا عدو ددك aan markaasi anigu u baqanahay deegaanka ugu baqanahay caadifada kama jeclaan karaan nolosha rasmiga xaqiiqiga ila taaro ugu dambeyn waxaan soo jeedinayaa waradooda ku baaqaya ummadda gobolka Sanaag in ay jaamacada soo camiraan anaguna waxaan bala qaadaynaa anaga xilbaanada badan halkan fadhiya waqtiyada weekendska inaanu gobolka nibaadno jaamacada nibaadno si voluntary wax uga dhigno professor jaamacada Caawud ka tirsanay halka ka hadlayay jaamacada Caawud waxyaabaha ku hormartay waxa kamid ah dadka reer Caawud aqoonyahanka ee ka shaqeysta Hargeysa khamiista iyo jimcaha waxay ku noqdaan gobolka awdal waxayna caawiyaan jaamacadahooda laakiin aqoonyahanka gobolka Sanaag maadaama uu dheer tahay way ka warwaraan dhimashada gobolka sidaas waxay sababtay aqoontii Hargeysa kula ku warta ma faro maadaama laakiin hadda uu dafiican loo dhisay waan iskaashanayna anaga mas'uuliyiinta qaranka oo waray wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo wasiirada kale oo gobolka ku jira iyo Soomaaliya waxaan ka kaashayna billahi kariim sidii gobolka aan u iman lahayn sidii jaamacadaha aan u soo gaari lahayn xagga transportation ka haday tahay iyo xagga isku tirsanaanta haday tahay si aan u soo saarno arday isan oo credit hour waxa jira credit hour lagu cabiro ardayga qalin jabinaya ardaygu hadaan required credit hour ka dhamaysan wuxuu noqonayaa arday
كواليتيga aqoontiisu ay liidato wuxuuna noqonayaa qof qabad ah oo lagu soo qabto mana rabno qof halkan ka qalin jabiyay in lagu yiraahdo kan xaggu ka soo baxay ama jaamacadda ka soo baxay quality hubayda waxaan doonaynaa jaamacadda quality-ga ka qayb qaadano waxaan doonaynaa insha Allah ta'ala in gobolka wax badan ku soo